kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamij aan kaga hadlayno taariikhda Ras Guardafoy ama Ras Casayr oo mar kamid ahaa meelaha dunida lagu hadalhaynta badan yahay. Ereyga Cape ama Ras geographiyan waxa lagu micnayaa buur dhagax ah oo madaxa kala soo baxda dhulka biriga kuna sii fogaata qiyaas ahaan badda dhexdeeda oo sababta inay isbedel ku keento cabirka xeerta baddu ku socoto kana durugto halkii ay ahayd qiyaas ahaan in xeertu raacdo ama marto raasaska ka jira xeebaha Puntland. Ras Guardafoy oo loo yaqaan Ras Casayr waa buur dhagaxa oo qiyaasta badda ka sarreysa 244 mitir. buurtu waxay u muuqaaleegtahay libaax hurda sleeping lion ama leona dormente oo magac ay u yaqiineen ama ugu yeeri jireen badmarinadii hore qarnigii dhexe. muuqaalkani waxa lagu qiyaasaa in sawirkan la qaaday oo Guardafoy laga qaaday 1900 ilaa 1908. Ras Guardafoy ma aha mid kaliya ee ku yaala qaaradda Afrika, wuxuu ka mid yahay raasaska ku yaala 9 dal oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Eritrea, Liberia, Ghana, Mauritania, Morocco, Senegal, South Africa iyo Tunisia. Ras Guardafoy haddaan tilmaano halka uu dhaco waxa uu ku yaala cirifka ugu xiga qaaradda Afrika dhanka qorax soo bax. waa geeska Afrika oo halka qaaradda Afrika oo kaga yaala oo kala qaybisa badweynta India oo dhanka koonfureed iyo badda cas oo dhinaca waqooyi waa meesha dalka Soomaaliya kaga yaalo qaaradda Afrika. Cape Guardafoy waxa uu 50 kilomitir u jira magaalada Calula waxaana uu u dhaxeeyaa Bareeda iyo Tuuxin. haddii aan sii fogeyno Ras Calula iyo Ras Xaafuun ayuu u dhaxeeyaa, waxa kale oo u dhaxeeyaa Ras Calula iyo Ras Binna. koonfurta Ras Guardafoy waxa ku yaala raasas kale oo loo yaqaano ama ras kale oo loo yaqaan raska beenaadka ama Falso Cabo Guardafoy ama Cabo Sheranif, iyadoo ciidamada halkaasi ka jirta keento in maraakiibtu u qaadato inay Ras Guardafoy soo gaaraan ama ay joogaan. qaladkaasina uu sababo inay maraakiibtu halis u galaan oo ku burburaan aagaasi kadibna halkaasi ay ku jajabaan. ereyga Guardafoy waxa la yiraahdaa waxa uu ka soo jeedaa laba erey oo afka Talaaniga kala ah guarda ee fugi oo macnaheedu yahay arag oo carab. waxa la yiraahdo buurta lafa goray. buurtaasi maxaa laga ogyahay seese in lafa goray loogu baxshay? buurtaas teera buurtaas lafa goray waxa loo yiri
marka aad xagga waxay u tahay way u dhaxay caluule waxay ku jirtaa dooxin bay waxay ka xigtaa xagga baargaal waa buur aada u dheer xagga badda markaad ka marayso biriga kama arki ka biri waad ka arkaysaa saa u socoto ayaa badda kusoo baxayso dee magacaas ma jiro laakiin magaca waxay kula baxda xagga badda markaad ka marayso ayaad waxaad moodaysaa goray ama haldhaa lafa goray macnaha goray taagan baad moodaysaa markaad xagga badda ka marayso saasay lafa goray kula baxda sawirkan waxaa raas ka qaaday dayax gacmeed ama satellite jasiiradda suqadar oo ku taalla badweynta india oo la yidhaahdo juqraafi ahaan waxay ugu dhowdahay dalka soomaaliya hase yeeshee ka tirsan dalka yemen ayaa waxa ay ka xigtaa 240 kilomitir bariga halka 380 kilomitir ay ka xigto jasiiradda arbeedka dhinaca koonfureed waxaa kaloo jira raasul fiil ama mount elephant ama jabal fiil magaaladaasi oo la qiyaaso inay kasoo jeedaan filosofkii sahamihii juqraafiyahanka Greek ah ee Strabo Raasufil waxa uu 39 nautical mile galbeed ka xiga Cabo Guardafui ama Ras Asir halka 7 nautical mile uu jiro magaalada Calula muuqaalkan Raasufil waxa wargeyska dalka Faransiiska ee la yiraahdo Le Monde uu ka soo baxay 1860kii Ras Asir fogaanta taariikhan muddada dunidu wax ka taqinay waxa ay ku siman tahay ilaa ay waqti uu soo baxay qoraalkii la oran jiray Nel Periplo del Mare Eritreo oo ahaa dukumenti qadiim ah oo ka hadlayay marinka badda cas gacanka Persia iyo badweynta India waxaana garigu ku magacaabi jireen Rasul Fil koodii ama qarnigii koowaad nabi ciise dhalashadiisii kadib waxayna ugu yeeri jireen Arromantum Promontorium ama Cabo delle Aromi oo ah raaskii uduga Faarax Maxamed Fuqir oo ka hadlaya dagaalo loogu yeero dagaalkii Spiceska oo la sheego inay aagaasi ka dhaceen dagaalkaasu wuu jiray wuxuuna u jiray inagu waxa caanaynu ku nahay dhulkan ilaahiyada ama Puntland ama nin walba si wax loo yaqaano waxa jiray Spiceska waqtigii xawaajida la raadin jiray baa iyadana la raadinayay wuxuu ahaa markaa in la yiri beeyada iyo maydiga ama fooxa dadku dhan waxay u yaqaanaan foox laakiin waxa loo yaqaan waxay kala baxaan beeyo iyo maydi iyo falax iyo waxyaalahaas kala baxaan in dadkaas ay raadin khaasan Romaniski baan anagu ku filaya waqti taariikhda ay ahayd in halka dagaal laga soo qaaday dagaalka la soo qaadana lagu jabiyay meesha la yiraahdo Calula ayaa lagu jabiyay nimanka kala hogaaminayana Claudius baan ku maqlay anu taariikhda ku haya iyo nin la Ikhnaton bin Siyad oo ninkii qaa'idkii dhamaa watay in Soomaalidu halka joogto Calula iyo aageeda joogto inay ku jabiyeen oo halka lagu dilay ninkii watay baan laakiin taariikhda caalamku ragga ka hadlaysay inay Soomaaliya yimaadeen ma xusto marka ma inaga samaysanay ma ayna samaysan laakiin waxa la anaga ruuxayagu hadaanan anagu aan ma naqaanay laakiin hadaanan aqoon maxaa keenay taariikhdeeda inaanu barano inay nimankaas nagu soo duuleen oo la jabiyay maxaana baray waxa la sheegaa in islaamka ka hor boqortooyin ay ka jiri jireen aagaas geeska Afrika ee loo yaqaan Guardafui iyo hareerihiisa haatan kamid ah qaybo kamid ah dalka Soomaaliya Puntland goboladiisa arrinta maxaa ka jira boqortooyinkaas magacooda la haya waa jiraan boqortooyin fara badan baa ka jiray geeskaas qaasaan Guardafui aagaas boqortooyinkaasna magacyo badan bay lahaayeen laakiin bal intaan ka xasuusto ayaan ku sheegayaa iyo waxaa kamid ah Failik boqortooyadii Failik oo dhalay Ilik wiilka iyo wiilku dhalay oo Ilik la yiraahdo waxayna xukumi jireen Olog iyo Daama magaalooyinka loo yaqaano waxaa jiray boqorka Barxa waxaa ku xigay boqorka Bis waxaa jira boqorada Cata waxaa jira Calula ereyga Calula macnihiisu ma leeyahay ereyga Calula hadba waxa lagu sheegaa laakiin magaca runtahay waxa weeye meesha ay wax ku dhamaadeen baa loo yaqaanaa dadka qaarkiis ay yaqaanaa waxaa jira waxa la yiraahdaa xabaalaha ama xabaalaha ambiyada oo aaga laga sheego wax jira ma tahay xagees ku yaali tara way jiraan xabaalan ambiyad xawaala baa la yiraahdaa afka Carabiga laakiin af Soomaaliga inaga waxaynu naqaanaa xabaal ambiyad anigu ruuxay waa arkay waa tagay waana dhulka Calula ay ku taalaa iyo aagaas u dhaxaya macnaha baargaal iyo Calula ay ku taalaa gobolka Guardafui
xabaalaan biyaadinayeen ilaa moordan 300 oo xabaalood oo waaweyn inay yaalaan. sawir gacmeedkan raas casayr waxaa sameeyey socotadii u kala goosisay ee reer Yurub iyo India bishii May 1870. mar waxaa jirtay jaraa'idka dalka Talyaaniga ay ka hadli jireen Ingiriiska ku tala jira inuu dhiso qooriga Suez mid kale oo barbar socda sida muuqaalkan wargeysyada Talyaaniga ku soo baxay ka muuqata. haddaba maxaa u sababa in raas casayr laga dhiso nalka musawicida ama il faro Talyaaniga loogu yaqaan ama lighthouse-ka? muhiimada istiraatiijiyadeed ee geeska Afrika ayaa waxa ay wax ka bedeshay furitaankii Suez Canal 17 November 1869. wixii muddada ka horreeyay waxaa maraakiibta dawladdu mari jireen oo marin u ahaa oo ay ka soo wareegi jireen badda Atlantika gacanka rajada suuban ama Cape of Good Hope ee dalka Koonfur Afrika. raas casayr ama raas guardafuy iyo Cape of Good Hope oo dalka Koonfur Afrika waxay isu jiraan qiyaastii 6190 kilomitir, halka Suez Canal iyo raas guardafuy isu jiraan 2840 kilomitir. raas guardafuy waxa uu jiraa Djibouti 1000 kilomitir, halka uu raas guardafuy u jiro dalka Kenya 2000 kilomitir. raas casayr oo ku yaala marin badeed istiraatiiji ah oo isku xira gaadiid badeedka u kala gooshiya Asia, Afrika iyo Australia, waxaa maraakiibta kala kulmi jireen halis siiba habeenkii iyo xilliga ay dhacayaan dabaylaha mansoonka loo yaqaano, waqtigaas oo siiga carro ah oo ay wadato dabayshu ay keento in aragtida ay xumaato ama visibility-gu. kadib markii maraakiib badan ay ku burbureen koonfurta raas guardafuy ama raas casayr, arrintaasi darteed waxaa bilowday hadalhaynta dhibaatadaasi, waxaana la isku dayay bal sidii caalami ahaan arrintaasi wax looga qaban lahaa. muhiimada geeska Afrika waxaa feer socday halis ay maraakiibtu kala kulmi jireen raas casayr. haddaba markii dunidu dareentay muhiimada iyo halista, waxaa bilowday shirar lagaga hadlayo in xal loo helo iyo in howlgalo lagu sameeyo loo howlgalo samaynta nal laga sameeyo raas casayr oo laga dhiso halkaasi, waxaana sababta keentay in mashruuca nalka maraakiibta haga oo muddo dheer laga hadlayay kii ugu horreeyay dalka Talyaaniga ka dhiso gobolka bari ee dalka Soomaaliya, taasoo ah mid ku yaala raas casayr ama raas guardafuy oo ah cirifka bari ee geeska Afrika, waa halka loo yaqaano haatan gobolada Puntland ee dalka Soomaaliya. mashruucaasi oo la fuliyay dhismihiisa xilligii maamulka fashistaha Talyaaniga uu wakiilka uga ahaa dalka Soomaaliya gudoomiyihii la oran jiray Mario De Vecchi. mashruucaasi waxaa qorshihiisa lahaa wasaaradda badda iyo arrimaha dibadda ee waddanka Talyaaniga. mashruucaasi nalkana waxa uu heliyay raadiyaha lagula hadla maraakiibta maraysa raas casayr ee u kala socota Asia, Afrika iyo Australia si loo ilaaliyo ammaankooda. buug laga qoray hogaamiyihii dalka Masar xilligii uu socday dhismaha Canal Suez oo lagu magacaabo Ismaaciil Damaleyn Kadif oo qoray Pierre Crabet, waxaa laga soo xigtay 19 Maars 1878 in dalka Ingiriisku sahan u diray Cape Guardafuy ama raas casayr iyo dhulka ku hareeraysan xeebaha si wax looga ogaado aragtidii oranaysa raas casayr in laga dhiso nal maraakiibta haga. boqor Cusmaan oo ahaa boqorkii Mujuurtinya ee qarnigii 19 iyo 20aad oo ka talinayay inta badan dhulka iyo xeebaha waqooyi bari ee dalka Soomaaliya iyo boqortooyada waddanka Ingiriiska ayaa waxa dhex maray heshiis aan toos ahayn oo boqortooyada Mujuurtinya lagu heshiinayay in ka howlgasho sabata bixinta shaqaalaha maraakiibta Ingiriiska ee waxyeeladu ka soo gaarto badda hoos tagta boqortooyadaasi. Faarax Maxamed Fuqyar oo wax laga weydiiyay bal waxa laga yaqaano magacyadii maraakiibta ku burburay aagaasi, waxa uu yiri horta waxay yiraahdaan taariikhdu ama dadka sheekada aanu ka soo gaaray ama anagu aragnay waxaa la leeyahay 8 markab oo waaweyn baa ku burburay. waxaa jiray masuuxle mid la yiraahdo, waxaa jiray Bariisle, waxaa jiray mid la yiraahdo Miko oo macnaha gabagiisiba ay ku jirtay Miko Franciscan Samir mulku xisaara kala leeyahay oo ayaan damay xataa isaga ruuxiisa raqdiisa la guranayay oo niman geologista iyo waxa loo soo diray archaeologista oo ay ka baareen meesha la yiraahdo ayaami hadda Cabdullaahi Yuusuf iyo ay joogeen waxay ka baareen raasiga laga baaray macnaha alaab laga qaaday. dukumentiyadii wasaaradda arrimaha bariga Afrika ee dalka Talyaaniga muddadii u dhaxaysay 1857 iyo 1939 waxay muujinayaan inay jirtay hadal haynta in la dhiso nalka
raas casayr laga sameynayo ama faaraha loo yaqaano. sidoo kale waxay qoraaladaasi la isdhaafsaday sanadihii u dhexeeyay 1877 iyo 1890 ay ka hadlayeen soo jeedinta heshiis caalami ah oo laga gaaro arrinta dhismaha nalkaasi raas casayr. dhammaadkii sanadkii 1903 waxaa Talyaanigu badda cas u diray markabkii Stafetta iyadoo uu hogaaminayay Patrice Albertizzi oo loo sameeyo naqshad mashruuca nalka maraakiibta haga ee raas casayr la doonay in laga dhiso. wuxuuna gaaray markabkaasi raaska bishii Maarso 1904. warbixin mashruucaasi ay ka soo saareen guddiga loo diray waxaa dib loo eegay 1909 inkastoo aan meel laysla dhigin marka la dhiso cidda xilka gacan ku hayntiisa qaadanaysa, waayo waxaa la isku afgaran lahaa su'aalaha xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha. aqalka hoose ama House of Commons waddanka Ingiriiska kulan uu ka yeeshay arrintaasi 14 Maarso 1902 waxaa su'aal codsiga soo jeediyay Mr James Wayne oo ku su'aalay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Ingiriiska. markaan arkay shilal badeedkii badnaa ee la soo xaqiijiyay inay ka dhaceen xeebaha koonfureed ee raas casayr ee maraakiib badan iyo shaqaalihii saaraa dhibaato ka soo gaartay, maxaa diidaya uu yidhi in la tixgeliyo fursadaha mudnaanta leh iyo in lagu dhaqaaqo tallaabo lagu damaanad qaadayo dhismaha nalka raas casayr si halista halkaa ka jirta loogu helo xal ay ku badbaadaan maraakiibta iyo dadka la socda ee marayay xeebaha badweynta India ee Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Ingiriiska Lord Cranborne oo arrintaasi ka jawaabay wuxuu yidhi xukuumadda boqortooyada Ingiriiska waxay la xiriirtay ama xiriir kala samaysay arrintaasi xukuumadda dalka Talyaaniga oo lagu tixgelinayay soo jeedintii hindisaha ku saabsanaa in raas casayr ama Guardafuy laga dhiso nal ama waxa loo yaqaano ilfaar ama lighthouse, iyadoo markasta ay jirto kala duwanaanshaha aragtida shirkadaha Ingiriiska ee daneynaya waxtarka hindisaha nalka. intaa kuma joogsan ee 2 Juun 1902 ayaa Mr James Wade waxa uu mar kale soo jeediyay su'aal ahayd in arrintii nalka raas casayr waxa laga qabtay iyo in kale. dhanka kale suldaankii Hobyo Yusuf Ali Kennedy oo ka talinayay qayb ka mid ah geeska Afrika ayaa isaguna waxa uu kala hadlay arrinta dhismahaasi nalka maraakiibta haga. sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dalka Faransiiska oo ganacsi ku lahaa dalka Yemen magaalada Cadan, mashruucaas oo hindisaha lacagta ku baxaysa ku talagalku ah inuu bixiyo maalqabeenkaasi waddanka Faransiiska ee reer Marseille. Ingiriiska oo jasiiradda Suqadara xukumayay ayaa waxa uu ku doodayay raas casayr sheeganayana, hase yeeshee waxa uu Ingiriisku markii dambe kaga tanaasulay ama kaga laabtay sheegashada raas casayr heshiiskii 5 May 1894 labada dal ku dhexmaray oo Talyaaniga iyo Ingiriiska magaalada Rome ay kala saxiideen. Francesco Crispi oo ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga iyo diblomaasi Ingiriisa oo la oran jiray Sir Francis Calais Ford, heshiiskaasi oo soo afjaray khilaafkii xuduudaha dhulka Afrikada bari ee maxmiyadaha labada dal. inkastoo gobolada Soomaaliya ee Talyaaniga gumaysanay waqtigaas si buuxa ugu wada jireen gacanta gumaysiga Talyaaniga, waxaase magacahan midayntooda gobolada Talyaaniga gumaysanaya koonfurta Soomaaliya lagu dhawaaqay sanadkii 1905. 12 September 1908 maqaal dheer oo ku soo qoray uu ka soo qoray raas casayr wargeyska lagu magacaabi jiray The Singapore Free Press and Mercantile Advertise oo magaciisu ahaa hindisaha nalka ee loo soo jeediyay in laga dhiso Guardafuy ilfaro proposta per Guardafuy, kaasoo laga hadlayay suurtagalnimada iyo xaqiijinta hindisaha dalka Talyaaniga soo jeediyay ahaa in nal maraakiibta haga laga dhiso Guardafuy iyo jasiiradda u dhow ee Suqadara oo dabeelo ciid iyo ciiriyaamo wata ka dhacaan badweynta India xilliga mansuunka, maraakiib badanina sababta darteed xeebahaas ugu burburaan raas casayr. bishii Janaayo 1915 wasiirkii badda iyo kii gumaysiga iyo arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga waxay u direen wasiirka maaliyadda dalka Talyaaniga hindisa ku saabsan dhismaha laba musawicood ama laba nal oo Guardafuy iyo Calula. hase yeeshee arrintaasi waxa wax kama jiraan ka dhigay hirgelinteeda bishii May 1915 marka dalka Talyaaniga ka qayb galay dagaal weynihii koowaad ee dunida. 11 Agost 1923 waxaa wargeyska lagu magacaabo The Niger oo lagu soo daabay warqad uu qoray Mr Rostul, wakiilkii guud ee shirkadii lagu magacaabi jiray Agente Generale della Messaggeria Marittima a Marsiglia, inuu marar badan arrintaasi kala hadlay General Mercantelli rasuulkii guud ee dowladda Talyaaniga wakiilka u ahaa gobolka Banaadir arrinta dhismaha nalka Guardafuy. haddana
uu la socon waayay dhismahaasi oo dib ugu dhac u sabab ahaa waa helidda dhaqaalihii ku baxayay iyo sida laga yeelayo gacan ku hayntiisa marka hawshu dhamaato iyo ka difaacidda weeraradii kaga imaanaya Soomaalida oo dhismaha ka soo horjeeday iyo dawladda Talyaaniga oo doonaysay in dhaqaalaha ku baxaya lala qaybsado mar haddii nalku dan u yahay guud ahaanba nabadgelyada maraakiibta dunida ee dhan oo halkaa maraysa. Talyaanigu wuxuu ku doodayay in la ogolaado taladii uu soo jeediyay General Mercantelli oo ahaa gudoomiyihii xukuumadda Talyaaniga u qaabilsanaa gobolka Banaadir ee dalka Soomaaliya wakiilka uga ahaa taasoo ahayd in lacag fiya laga qaado maraakiibta maraysa Ras Hussein ama Guardafuy iyo in la dhiso saldhig lagula hadlo maraakiibta si loola socdo nabadgelyadooda. 10 Janaayo 1924 waxaa shaqada iyo qodista iyo miina ku qarxinta dhulkaasi laga dhisayo nalka faaraha ee Ras Hussein ayaa bilaabatay iyadoo sahankii ugu horreeyay ay soo sameeyeen oo meeshaas loo qonday in nalka laga dhiso 1904 koox saareyd markabkii istafeeta ee dalka Talyaaniga. 15 Febraayo 1924 geeska Afrika waxaa kaloo laga dhisay dhismaha nalka maraakiibta haga ee magaalada Calula. bishii Janaayo 1924 waxaa bilowday cirifka bari ee geeska Afrika qaybta Soomaaliya Talyaaniga gumaysanayay howlgalkii ugu horreeyay ee laga taagayay tiirarka dhismaha nalkii ugu horreeyay ee maraakiibta haga habeenkii waxaana hawsha nalkaasi lagu soo eebiyay muddo 3 bilood gudahooda. dhismaha oo heerar kala duwan soo maray waxaa rasmi ugu howlgalay hagidda maraakiibta Ras Hussein 5 Abriil 1924 hase yeeshee habeennimadii 19 iyo 20 Maarso 1924 waxaa markii horreysay tijaab ahaan nalkaasi loogu sameeyay Ras Hussein iyadoo laga hagayay markab lagu magacaabi jiray Marchiaro oo u kala gooshayay Xaafuun iyo Ras Hussein. nalkaasi waxaa loogu magac daray Francesco Crispi. nalkaasi waxa uu dheer leeyahay 19 mitir oo laga arki karo iftiinka nalka ilaa 26 mil iyadoo 5 ilbiriqsi oo kasta maraakiibta badda maraysa arkaysay ama arki kartay iftiinka nalka. muddadii uu socday dhismaha nalku waxaa ka gudbay maraakiib lagu qiyaasay 700 ilaa 800 oo markab bishiiba halka isku celcelisaan lagu qiyaasay maalin walba inay ka gudbayeen Ras Hussein 25 markab. nalka Crispi waxa uu noqday astaantii gumaysiga Talyaaniga ama simbolo dell'imperialismo italiano. nalka magacyada loogu yeeri jiray waxaa ka mid ahaa Il Faro di Mussolini. waxa uu soo noqotay hawl gumaysiyeedkii ugu hadalhaynta badnaa iyo riyadii boqortooyadii gumaysiga Talyaaniga ee Soomaaliya ka jirtay intii u dhaxaysay 1889 ilaa 1941. nalkaasi waxa kale oo noqday astaan Talyaaniga cusub ama Il Faro è simbolo della nuova Italia. musawiciidii ama nalkii koowaad waxay ahayd biro tiirada oo la isku xirxiray sida ku cad qoraaladii Procedimenti e Cologne 1924 iyo Cartoline de Boca iyo buuggii lagu magacaabi jiray Orizzonte d'Impero 1935 waxaase la bedelay oo mar labaad la dhisay dhismahaasi oo loogu magac daray Fascia Littorio sanadkii 1930. dhismaha nalkaasi waxaa fuliyay hoggaanka dhismaha ee ciidamada badda ee dalka Talyaaniga ama Sezione Fari del Genio Militare iyadoo nalkaasi lagu soo sameeyay magaalada Napoli ee dalka Talyaaniga. Francesco Crispi haddaba muxuu ahaa oo faaraha loogu magac daray? Francesco Crispi wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii dalka Talyaaniga 15 December 1893 xilka qabtay waxaana lagu tilmaamaa kacanyahan halgamaa iyo badbaadiye qaran Salvatore della Patria isagoo dalka madax ka noqday waqti siyaasadda arrimaha dibadda dalka Talyaaniga ku sugnayd heer aad u liita. taariikhda xusuusiyaadka 1924 lagu dhajiyay musawicida ama nalka Crispi ama nalka Ras Hussein kadib markii la dhamaystiray dhismaha nalka Guardafuy ama Ras Hussein waa kii ugu muhiimsanaa geeska Afrika laga dhisay. waxa wasaaradda badda ee Talyaaniga oo haysata ogolaanshaha wasaaradda gumaysiga bishii May 1924 go'aan ku gaartay in nalkaasi ama nalka Crispi lagu dhajiyo qoraal lagu dul qoray bir mara oo muujinaya taariikhda markabka Emilio oo kabtan ama naaquda ka ahaa Enrico della Albertis iyo markabka kale ee Maddaloni oo kabtan ka ahaa Nino Brixio kuwaas oo ahaa maraakiibtii ugu horreysay ee dalka Talyaaniga ka gudba qooriga cusbaa ee Suez Canal markii la furay 1869. nalkaasi oo lagu soo sameeyay xarunta nalalka farsamada lagu farsameeyo ee dalka Talyaaniga ee ku taala dalka Talyaaniga magaalada Napoli 29 Oktoobar 1924.
nalkii koowaad ee Francesco Crispi ama nalka raas casayr ee maraakiibta waxaa dib loo cusboonaysiiyay 30 May 1930 oo midka hadda raadkeedu taagan yahay la dhisay waqtigaasi wuxuu xukumayay dalka Soomaaliya gudoomiyay dalka Talyaaniga u qaabilsanaa Soomaaliya oo la oran jiray Guido Corni muuqaalkii hore iyo sida uu hadda yahay nalka raas casayr oo 19 jirsaday sanadka 2015 waxaa tan u muuqdaa ama u eegyahay sida tan iyadoo uu ka maqan yahay oo lagala baxay nalka maraakiibta hagaha ama la laterna ama lighthouse-ka waxaa kaloo laga fuqsaday birtii maarta ahayd ee taariikhda iyo sababta loo dhisay ay ku qorayd muuqaalka nalka markii la dhisay waxaa gumaysigu si uu dadka u baro lagu dulmuujiyey tiro tigidada ama waxaa loo magacaabo frangaboli postali oo waraaqaha lagu dhajiyo la sameeyay sanadihii 1934 kuwaasoo uu ku sawiraa raas casayr oo uu ka dulmudan yahay nalka Francesco Crispi waqtigaasi waxaa lagu tilmaamaa markii la daabacay xusuus taariikhii ugu badnaa ee laga hayo gumaysiga Talyaaniga ee koonfurta dalka Soomaaliya kuwaas oo isugu jiray wargeysyo buugaagta dugsiyada lagaga barto kaarta postale ama tigidada lagu dhajiyo waraaqaha iyo waliba filimo uu ka mid ahaa kii la oran jiray La Soomaaliya sawir dayuuradeedkani waxa uu ka mid ahaa saddexdii dayuuradood ee u kala duulay Muqdisho iyo Bandar Qaasim ama Boosaaso 1928 waa nooca loo yaqaano Romeo 1 intii u dhaxaysay 8 ilaa 20 Oktoobar 1928 waxa gudoomiyay dalka Soomaaliya waqtigaas Guido Corni u bilaabay socdaal qaatay 3,000 kilomitir oo hawada ah oo ka bilowday magaalada Muqdisho Bandar Qaasim Boosaaso Caruura Guardafuy jasiirad lamooda danta xaafuun iyo hurdiya oo ahayd xarunta warshada cusbada muuqaalkani waa sawiradii lagu soo dulqaaday ama ay soo qaaday duulimaadkii ugu horeeyay ee hawada lagaga sameeyay Mujurtiin oo ay ku jireen sawiradii nalka Crispi ama nalka Guardafuy waxaana lagu soo daabacay wargeyska La Revista Aeronautica bishii Janaayo 1929 iyadoo loogu magac daray duulimaadkii Mujurtiin ama Involo sul Mujurtiin dagaaladii ka dhacay nalka Crispi ama nalka raas casayr La Battaglia del Faro Crispi xilliga nalka raas casayr ee Francesco Crispi hawlihii dhismihiisu socdeen waxa uu ku beegnaa waqtigii gumaysiga Talyaaniga uu koonfurta dalka Soomaaliya uu ka waday dagaalkii uu ku wada qabsanayay siiba goboladii waqooyi bari oo haatan Puntland loo yaqaano waxaana duulimaadkaasi gumaysiga feer socday dagaal iska difaacida ummadda Soomaaliyeed iyo iskaga caabinayeen gumaysiga siiba ciidamadii boqortooyadii gobolada bari ee dalka Soomaaliya isla markii dhismaha nalkaasi Guardafuy la bilaabay Janaayo 1934 waxa ciidamadii boqortooyadii ee waqooyi bari ka jirtay waqtigaasi waxay bilaabeen weeraro isdaba joog ah iyadoo ciidamadii weeraraas ku qaadiyeen Tuuxin iyo nalka raas casayr laga dhisayay 25 November 1925 weerar ay ciidamada boqortooyada Mujurtiin ku soo qaadeen ciidamada Talyaaniga ee ilaalada ka ahaa nalkaasi raas casayr waxaa lagu dilay John Aldo oo ahaa ninkii nalka shidi jiray iyo afar askari oo kale iyadoo 5 kalena lagu dhaawacay weerarkaasi 25 Janaayo 1926 muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ciidamadii gumaysiga weerarada ku hayay ee Tuuxin ka dhacay waxay weerarkaasi ay ku soo qaay halkaasi gurmad u soo sameeyay ciidamada Talyaaniga markii lagu magacaabi jiray Beriney iyadoo aroornimadii 26 Janaayo 1926 ciidamada muwaadiniinta Soomaaliyeed ay weerar kale ku ekeeyeen ciidamadii gumaysiga ee fadhiyay halkaasi weerarkaasina waxaa lagu dilay Dambe Alexander Gatti iyo 22 askari oo kale wargeysada waddanka Talyaaniga ciwaanada ay ku qoreen dhimashada Alexander Gatti waxaa ka mid ahaa il capitano Gatti more difendendo il Faro Crispi ciidamada weerarkaasi kala duwan ku qaadayay fadhiyadii ciidamada gumaysiga ee raasay waxaa hogaamiyaashii wadi ka mid ahaa xirsi boqor
bishii May 1941 oo socday dagaalkii labaad ee dunida waxaa nalka Raas Casayr iyo tuulada u dhow ee Tuuxin ay noqdeen goobihii ay ku hardamayeen ciidamada dalalka Britain iyo Talyaaniga waqtigaas ciidamada Ingiriisku doonayeen inay ku gacan sareeyaan ama ka gacan sareeyaan ciidamada Talyaaniga si ay ugu fudaato maraakiibta Ingiriiska ee marayay badda cadmeed iyo India inta u dhaxaysa halkaasna waxaa ka dhacay howlgal lid ku ah ciidamada Talyaaniga 16 July 1941 waxaana Talyaaniga laga qabsaday xaafuun 6 May 1941 waa ciidamada dalka Talyaaniga qabsadeen magaalada Bandar Qasim iyo Boosaaso iyadoo 12 May carruur la qabsaday ciidamada Ingiriisku weeraradii ay ku wadeen nalkaas ama Raas Casayr iyo Tuuxin waxay noqdeen kuwa dhibaato kale soo kordhiyay 1 July 1960 markii Soomaaliya xornimada qaadatay iyada ayaa la wareegtay nalkii Raas Casayr ama Guardafuy ama Francesco Crispi iyo dhammaan nalalka kale ee ku yilay xeebaha dalka Soomaaliya ee badweynta India iyo badda Cas wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe dalka Soomaaliya 1990 dalkaasi waxa uu raacay burburkii dalka maraakiibtana waxaa haga satellite sida TomTomka baabuurta haga Guardafuy hadduu awal ahaa raaska ama buur haatan waxa uu noqday gobol kamida gobolada Puntland oo dawladda Puntland aqoonsatay 8 Abriil 2003 waxaana magaalo madax u ah Calula barnaamijkeena aanu kaga hadlaynay taariikhda Raas Guardafuyna inta ay ku leeyahay tan inta mid kale ku doonaan si ay وحشني جري